wasiirkii ugu awoodda badnaa ee dhan walba wuxuu toociyey ee cid walba jiidhay ee meel walba ka booday ee weliba taariikhda siyaasadda isagoo awood aan loo dooran ku camal falaya oo ku cartamaya gabay meel la soo fadhiistay ee ummaddii shicibkaydu wasiirka u ahaa gabay goodi faan hanjabaad iyo dhalashaa isugu daray kii hulaaqshay libiya darajo siiyaane waxaan ahay darwiish sheeganay rag isla daaleeni markay xaajo kala daadatee dacal la dheeraato ama ay daruuraha kortee daafta iman weydo waxaan ahay ninkii loo diree soo dawayn kara musabiixi markuu sharcigii ku tuntay waacihii qaranka saddexdii waaxoodba madaxu isugu xidhay waxaanu dhaliyey murankana ujeeddo keliyu ka leeyey waa muddo kordhin miyaynu yeellaa muddo kordhinta maya doorasho haa sidii aan maalmo dhaweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhawad aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaanku idhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan gudoomiye wax kaftameena waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yiri way hor yaallaan mooshinka waxaan ku yiri see u egyahay wuxuu yiri bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogay way ugu soo celiyo wuxuu yiri nambarkaas weey oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxaan yiri qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri bal